maamulka waqooyi bari ayaa digniin culus u diray Puntland iyo Somaliland ayagoona wacad ku maray waqooyi bari in ay markaasi iska dhicin doonaan labada maamul ee Puntland iyo Somaliland oo ay sheegeen inay ku heshiiyeen burburinta dhibaataynta iyo carqaladaynta maamulka curdanka ee waqooyi bari waxaan idin la wadaagi doonaa hanjabaadda ka soo yeedhay maamulka waqooyi bari waxa hanjabaadda ku sababay ama waxa ka keenay inay hanjabaan iyo sidoo kale xaqiiqada jirta ee ku saabsan heshiiska Somaliland iyo Puntland iyo sidoo kale waxa uu ka dhigan yahay maamulka waqooyi bari iyo hadiiba ay markaasi dhici karto in labadaasi maamul ay markaasi heshiiskoodu uu sababi karo inay si wada jirahi duulaan ugu qaadaan waqooyi bari muuqaalkan like saar channelkana subscribe saar kuna soo dhawaada warbixin ku saabsan khilaafka iyo sidoo kale xaaladda si cuslaanaysa ee u dhaxaysa maamulka waqooyi bari Puntland iyo Somaliland oo isku dhinaca iyo maamulka waqooyi bari oo hal dhinaca haddii aan ku bilaabo barnaamijkeena dabcan intiina la socota barnaamijyadeena horena soo daawaday maamulka waa ay raahdeen magaalada Cerigabo waxa ka socday maalmahan oo ku soo gabagaboobay shir nabadeed oo ay Somaliland soo qaban qaabisay Puntland ay qayb ka ahayd shirkaasi waxa looga hadlayay sidii Cerigabo markaasi nabad looga dhigi lahaa dadkii ka qaxay ama dadkii ka barakacay loogu soo celin lahaa magaaladuna ay noqon lahayd magaalo la wada degan yahay oo markaasi si nabad lagu degan yahay dabcan arintaasi waxay ahayd arin aan horey loo filayn laakiin dhacday oo Puntland ay qayb weyn ka qaadatay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo khudbad ka jeediyay shirkaas ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay madaxweynaha Puntland oo uu sheegay inuu shirkaan qayb weyn ka ahaa iyo sidoo kale nabadda Cerigabo isagoo Cabdiraxmaan Cirro uu madaxweyne Dani si weyn haddaba arintaasi waxa si weyn uga falceliyay maamulka waqooyi bari oo qoraal soo saaray dab aan iraahday oo hadlay haddaba heshiiskaas iyo sidoo kale isku soo dhawaanshaha Puntland iyo Somaliland waxa si weyn markii ugu horeysay uga falceliyay ugana hadlay maamulka waqooyi bari gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka waqooyi bari Dr. Aadan Cabdullaahi oo wareysi bixiyay ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska iyo tilaabooyinka laga filan karo inay waqooyi bari qaado iyo sida ay uga jawaabi karto waxa uu sheegay in ay labada maamulba ku heshiiyeen burburinta iyo carqaladaynta Somaliland iyo ay raahdeen waqooyi bari ay iska dhicin doonaan dabcan wuxuu yiri Puntland iyo Somaliland waxay u heshiiyeen biyiri inay wiiqaan waqooyi bari waan iska dhicinaynaa hagardaamadooda annaga ayaa xaq ku taagan oo guuleysanayna bal qayb kamid ah hadalkiisa aan wada dhageysano gudoomiyaha baarlamaanka maamulka waqooyi bari Dr. Aadan oo ka hadlaya amuuraha iyo sidoo kale isku soo dhawaanshaha iyo Puntland iyo Somaliland iyo Puntland waxay u heshiiyeen ujeedadooda laakiin mid baa cad kana muuqata heshiiska waxa weeyaan in ay wiiqaan oo ay hagardaameeyaan jiritaanka waqooyi bari anagu waxaan leenahay wax sax ma aha waana dee la iska difaacaya hagardaamoyinkaas waa loo maaragtay xogaal baa loo yahay waa la iska difaacaya maxay idin la tahay bal laba maamul oo xoog leh oo dhinacyada idinka xiga in idinka idin heshiiyaan idinka maamul curdana ah degmooyin kooban degan oo ka howlgalay ilaa hadda inta la xaqiijiyay soo culays idinkuma aha walays waa keenaysaa khasab walays waa keenaysaa labada dhinac walays waa ka imaanaya laakiin de anagu ma aanan alifin walayska iyaga alifaya waxaan rajaynayaa anagu wax kasta walays ka soo yimaada de madaafiic baa lagu garaacay ilaa saanood soo markan waxyaabo kale oo inay jiraan baa dhici karta hagadaamooyin kale inay jiraan waxaas oo dhan waa loo golahayaa waa loo difaac baa laga geliyaa waana xaqana marka liibaan xaqa guuleysanaya xaqa iyo xaqdarrada xaqa guuleysanaya xaqna waxa loo jeedaa waqooyi bari baa xaq ku taagan watahay halkaas uga soo laabano hadalka gudoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari iyo sidoo uga falceliyay arintaasi iyo jawaabtooda waa hadal culus oo weyn oo aan la dhayalsan karin marka laga yimaado hadalkiisa maxaa jira haddaba waxaa jira waa sidaan horadii kugu sheegay dabcan waxaa jira isku soo dhawaanshaha Puntland iyo Somaliland labadan maamul in dhawaalaba waa isku soo dhawaanayeen markii hore waxay ahaan jirtay Puntland iyo waqooyi bari inay isku xulafo ahaayeen taageertay Puntland xilligii dagaalka laakiin tan iyo markii uu madaxweynaha iminka cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro xukunka qabtay waxa meesha ka baxay xiisadii Puntland iyo Somaliland maxaabiis ba hadda ka hor ay isku sii daayeen arintaasi meel bay soo mareysay
maalinta ku xigta isku soo durkayeen warbaahinta isaga mahad celin jireen ugu dambeynna heer waxay maanta maraysaa ay labada dhinacba ay markaasi ay horey ugu kulmeen Nairobi wada hadleen heshiiyeen iskaashiyo amni iyo dhaqaale iyo ganacsi dhex mareen haatan nabad bay ka shaqeynayaan oo Cerigabo ayayba isugu tageen oo nabadeyn ay ka wadaan arintaas ayaa waxay muujinaysaa sida labadan dhinac ay markaas isugu soo durkayaan balse heshiiskoodu waxa uu halis ku yahay waqooyi bari oo iyadu Somaliland ay si weyn isku hayaan Somaliland ay wali aaminsan tahay inay dhulka waqooyi bari uu yahay dhul Somaliland wali aysan dagaalkii ka kaaftoomin ama aysan markaasi ka waantoobin wali ay aaminsan tahay inay Laascaanood iyo dhulka gobolka Sool iyo dhulkaas oo dhan uu yahay Somaliland waqooyi barina leeyihiin maamul la aqoonsaday oo heer federaala amurahaas oo dhan waxay muujinayaan sida ay markaasi maamulkani oo dabcan uu shaki weyn uga qaba arintaasi Puntland iyo waqooyi barina xiisadood waxay soo bilaabatay markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu tagay magaalada dabcan Laascaanood xilligaas oo maamul halkaas laga yegleelay oo dabcan dowladda federaalka iyo Puntland xiisada u dhaxaysa iyo isku soo dhawaanshaha waqooyi bari iyo dowladda federaalka ayaa meesha ka saartay xiriirkii labada dhinac ee waqooyi bari iyo Puntland ayadoo madaxweynaha Puntland uu si weyn uga soo horjeedo dabcan iskaashiga isku soo dhawaanshaha arintaas ama labada dhinac ee federaalka iyo maamulka waqooyi bari una arko inay tahay mid ka Puntland ahaan aan markaasi u wanaagsaneyn iyo isaga siyaasaddiisa federaalka ku wajahana ay caqabad ku noqon karto dowladda lafteeda waa federaalka ayaa fursad weyn oo Puntland lagu wiiqi karo ama si kale markaasi lagu cadaadis lagu saari karo u aragta waqooyi bari oo daris la ah in markaasi la xoojiyo sidoo kalena halkaasi meesha ugu dhow ee dowladda federaalku ay Puntland markaasi u adeegsan karto markaasi faragelinteeda arrimahaas oo dhan ayaa waxay meesha ka saareen dabcan Puntland iyo waqooyi bari oo markii hore ahaan jiray dad wada degan oo dabcan wax badan isku taageera hadii ahaan la dhaqaale garab ciidan hub wax walba marka iminka xaaladdu meesha maraysa adeegtina waxa ay markaasi waqooyi bari ay qidhay in labada maamul ee labada dhinac ka xiga ay awood badan yihiin isla markaasna ay iyada dhibaato weyn u keeni karaan laakiin ay sheegtay in hub iyo ciidan iyo wax walba haysato ay istifaacayso inta awoodeeda ah ay markaas iyaduna guuleysan doonto waa maasantiin khiyaaray waxa ka codsanayaa muuqaalkan like saarto channelkana subscribe saarto sina share garayso nabadgelyo